labadan magafe magac jidwaaq waxba ma yeeli karaan waayo jidwaaq waxa lagu yaqaanay hooyada nabadda gogosha hooyada hoyga nabadda dawladdeenu way saldhigi weyday ilaa ay timaado jidwaaq iyo jigjiga war shalay waxaa jirtay inaan ilmaha uga bax qabsado anoo qabri bayax jooga inaan banaanka ku soo kaajisiisto nabadgelyada darala aad darteed taasadan qabadinka ku soo qaata afka intaan ka jaro inaan u dhigo guriga doqdiisa oo ilmahaygu halka ku kaajo war maantana siday tahay waxba lagama sheegi karo maba anigu kama hadli karo horumarka uu wadanku gaadhay oo sababtu tahay sacab biyo lagu ma xajin karo waa waxa muuqda hadaynu iska indha tiro adduunka oo dhan baa arka maanta halku taagan yahay ilaa iyo maalinkii kilalka shanaad iyo ismaamulka iyo calankan aynu hadda wada luleynaynu leenahay haybkan lagu mideeyo haday naga dhabtahay oo calanku haybka inagu mideeyay hadaynu hooyooyin iyo odayaalnahay aan idin wada canaante caruureena ma gafayoga maxaanu kala hadhi laanahay laga reebi maxaynu uga xajisan laanahay laga reebo waa haday dhamaanteen calankan haybka inagu mideeyay oo dhab inaga yahay marka ereygan la riixayo ee la leeyahay waxaanu nahay anagoo jidwaaqa la haystayaal war wasiiradan maxay iyagu jidwaaq maaha miya maxay u muuqan laadahay oo dhalinyarada iyo inta isaga raacaysa ka qariyay kuwa socdaa inay jidwaaq yihiin odayada waaweyn inay kuwa jidwaaq salkeedii ahaa ay yihiin waxay adeeradeeda ay garab fadhiyaa garan waayeen oo maxamed bada maanta garan maxay tahay ninka kale uu wato marka aan taa ka gudbo anigu shalay toole waxaan ogaa isagoo intuu jigjiga tagay aan moodayo inuu jannatul firdawsa ka yimid oo inaan taabto mooday inaan ku janno tagiba isagu kaalaya inoogu yeedhayo dalkeeni maad aragteen maantana wuxuu taagan yahay la haystayaal baan nahay waxba kama nihin marka anigu waxaan oran lahaa adeeraday waa magafayaal bay dhaheene maba miyir qabeen ninku ugu waalan yahay iyo ku wataaba waayo Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ilaahay oo haa iyo maya meel ha nagaga wada keeni labaduba way waalan yihiin marka anu saan aaminsanahay labadan ninba way waalan yihiin umada iyo dadka fikirka qaldan laga qalday iyo dadka la leeyahay jidwaaq baa wax doonaya waxaanu sheegaynaa inayna jidwaaq ay nabad tahay laguna og yahay daris wanaag dad jacayl nabadgelyo nidaam aan adduunka ka jirin inuu jidwaaq ka jiro taana waxaan anigu maanta ku faaninaya ma ahe waa wax adduunka oo dhan arko hadda dadka Soomaalida weynta iyo Soomaaliya kale ee dariskeena dadka Soomaalida ee Itoobiya nagala tartanayn waxay ku tartamayaan maxay inoo diiday sida dadkan oo kale maanta anagu waxaan ku joognaa halkan dad la yiraahdo qabri bayax qabiilkan la wata waabanu garan laanay jidwaaq ee maanta naga hoos kacay aroos baanu qabri bayax ku tagnaa geeri baanu qabri bayax ku tagnaa xalfad baanu qabri bayax ku tagnaa war mabdii sida aha dhamaantiin baan idin la hadlayaa magafayaalka lama hadlayo dhamaan dadka waalidiinta dhalinyarada dadkan sharafta lahow shalay qabri bayax baynu ahayne goormaynu kala faquuqanay goormaynu laba shir kala qabsanay war maxaa ku dhacay oo loogu sacabatumay ma waxaynu garan laanaa inaan nidhaano anagu qabri bayax baan qabiilkan aad sheegaysaan ba garan mayno jidwaaqa laftiisa ba garan mayno qabri bayax baan nahay marka walaalooyin iyadoo waqtigu inagu xiriiriga yahay labadan magafe waxaan u sheegayaa anigu markii hore aan shirkan la qabanin Minneapolis aanan tagin markaan gaariga raacay aan shirka ku sii socday waxaan sii socday aniga oo leh reerkan anigu ka dhashay yaa gabdhihiina guursan inaa maanta aan guri leeyahay oo aan gabadh ahayn baa Ilaahay lagu mahadiyay yaa wax idin ku fali soo ma garanaysid waxaan gaadhay inaan idhaahdo nima reero ilaa anagu jidwaaq weyn inay xasan Ismaan Absamaano naaybi qaradii ila gaadhay ana halka taagan baan waxaan tagay shir adeeraday iyo jidwaaq iyo wasiiradii iyo ummadii u dhantahay fikirkii laakiin gurigayga aan ku haystaa muxuu ahaa sheekada qaldan anba wadada la sii mariyeen taaganay maba niinbo Absamaano anagu u tagnay marka waxa weeyaan markaan shirkii arkayna wax weyn iga bedelay waayo waxaan jirin sanaystayaal nabadiid
dad unaag iyo dad aynaan garanayn jawaari maxamed iyo dad lamida iyo qoomiyadaha badan ee nabadiidku ay ka kooban yihiin waayo waan tirin lahaa haddaan qof wax soo baratay laakiin aqoon la'aan bay cilo waxba ma baran intaaba aqliye iyo maskaxiyan uma ku garanayaa macnaha qofku markuu soo jeedo qofku markuu waxba baran adduunka jahli ku jiro indhaha xataa jahli buu kaga jira marka waxaan anigu aad iyo aad ugu mahadnaqaya dawladdeena qiimaha iyo quruxda badan